wada soconay ama wada sheekeysanay sanad iyo 7 bilood sanad iyo 7daas bilood inta wada hadlayna mostly waxyaalaha ay ugu qabsi jirto waxa kamid ah waxyaalaha baraha bulshada oo dadka ay soo wada dhigaan ani waxyaalaha kasoo qaad waxaa tahay qof caan ah qof hebel ah maanta la yaqaano qof hebel reply ku gashay dad badan ku qaaliin xiran markaa soo gelisay gabdho badan loof iyo wax ku dadkii soo direen horeeto gabdho badan asaas adi oo nolosha isla bilowdeen miyaad soo xasuusan lahayd daawade adigaan ku weydiinaya haddaa maanta noqoto qof caan ah oo dad badan ku xiran oo bulsho ah dadkaadii horeeto ay la socotay waxaan ka hadlayna waxaa waaye dhinaca jaceylka ma soo xasuusan lahayd telefoonna ma ka qaban lahayd dadka inta badan markii caan noqdaan ee dad bartaan weliba gabdhaha raggii hore la socday way ilowaan sababta ah waxyaalo badan ayaa keenaysa for example niman qaar way xun yihiin oo laga yaabaa waxay u keento gabadhan maanta inay caan noqoto ay raasato lacag ay raasato dad badan inuu ku xirnaado oo qof noqonin keligaa one person noqonin niyad jabkii iyo stresskii ilow waxaan gal ay keenayso gabdhaha caanka ah ayaa raba inaan video uga hadlo waa laga yaabaa gabdho badanaa ku xiran tahay maanta caan ah oo la wada yaqaano oo 100,000 subscriber haystaan waxaan marka fikiraa noloshoodii hore xiriirkoodii hore qaar may la socdaan qaarna miyay meeshii uga tagaan sida wasakhay ka qabaysteen camal adigan maanta dacaan lahaan lahayd qofka maanta la wado miyaa la wadi lahayd mise maalintaa kursiga ku fadhiisato waa iloobi lahayd dad badanaa jiro maanta caan ah la socdaan dad caan ahayn oo inta badanna gabdhaha iska laciif yihiin ay soo saarayaan raggana ay qarsanayaan because waxa quruxda badan waa la qarsadaa haddaa caan ahaan lahaydaan ka hadlayaa gabdhaha inta badan raggii ay la socdeen faraha way ka qaadaan way iska dhaafaan waxaa keenaysa sida wiilkan wuxuu shukaansan jiray maariish ayay muddo badan isla socdeen wixii ugu tagtane may sheegin oo public may kasoo dhigin sababta nolol hore ayay ahayd saaxiibkaagan intuu soo istaagay mail media ayuu ka sheegaynayaa wixii ugu tagtay asaga uuna sheegay masiir daawaday ragga iyo dumarka isku mid maaha ragga inta badan gabdhaha way silciyaan aayar hal mar kuma xanuunjinayaan dumarkana wax ma ilowaan xirbada ku jirto meel ayay dhiganaysaa maalin kale wax ku dhufato meel ayay dhiganaysaa adii laga yaabo inaad dhaadiyo cafi aan meesha ku xirno waa khiyaantay for example dumarka ma ilowaan ragga way xogsamayaan laakiin ragga way ilowaan gabadha computer camal waay maskaxda ayay dhiganaysaa soo haddaa wax ku samayso meel ayay dhiganaysaa maalinta koowaad maalinta labaad buug camal ayay meel la dhigaysaa way ku xareynaysaa markii u dambe ayadoo xiriirkii wado ayay
ee kaa go-aan waxay yeelanaysaa iska way dhadhacsiinaysaa inay kaa tagtay oo nolosheeda ku jirin adigana laga yaabaa inaad saa isu jeclaanayso gabdhaha iga raali noqda sirtan waxaa u bixinaya ma aqaanay raggow waxaa dheefeen i cafi waan ku khiyaanay i cafi sirtaadan bixiy i cafi laakiin gabadha wax ma cafiso meel ayay dhigaysaa waxay fiirinaysaa inaa isbedeli doonto mise inaa kusii wadi doonto waxaan aad samaynayso soo adi saa u wado gabadha qalbigeeda su u jawaay because dumarka wax ma ilowaan hal mar ayay kaa go-oonsanaysaa waxaa arkaysaa bil gudaheed ayadoo qofka lala wado waxaa isweydiinaysaa gabadhan miyay ku jeclaan mise been ayaa ku sheegi jirtay hadda wiilkan wuxuu leeyahay markaan gabdhaha qaar commenti ka bixiyo way masiiri jirtay adi xoolo maa tahay qofkaa la socoto ma baranbarba dhiigsoo ma laho gabar saa u quruxsan sidee gabdho kaleeta comment uga bixin kartaa si walbay gabar u dagan tahay ayna hadda uma siirin badnayn ma jecesho ninkeeda inay inbox kasta ku aragto waxay jeceshahay qof qiimo leh waa isla habaysi laga yaabo adee dhaysa gabadhan maxaa ka qaldan faham ma laho ee fahamka maxa keenayo oo isfahamka ka hadlaysa maxaa waaye wen adi mar walba commentiyaasha gabdhaha social media meel walba commenta ka bixinaysa qofaa la socotaa soo maaho jar waxaas xariirka daraadiis waxyaalihii hore a samayn jirtay iska dhaaf hadda single ma tihid ragga way calaacalayaan gabdhihii fahmi laayihiin gabdhaha way necab yihiin nin gabar walba statuskeeda u reply gareynayo adii ma jeclaan lahayd wiil saaxiibka haddana comment boqolaalan ka bixiyo maxay ii qaadan lahayd inaan qof xum yahay oo qof khiyaani soma soo saaxiibkaagana hadda calaacalayo oo oynayo ma ogo miyaa inta maalin wuxuu sameynaya gabadhan inay u kadgareynayso ee meel u dhigaysa elad mar ayaan kaa bixi doonaa mar ayaa qalbigii ii qabowi doonaa ragga i daawanaya laga yaabaa gabadha ayaa la socotay isla markiina way kaa go-day gabadha muddo isla socoteen oo sa'id ku jeclay oo si xaq ku jeclay si oo dhab ah ku jeclay oo qof walba u sheegi jirtay markii la dhaho abaayna markaasi ana qof ay la socdaa oo hal markaa tagta isbedeshay miyay isweydiiseen gabadhan maxaa bedelay raggeena soomaaliyeed dhinaca jecelka oo ku fadhiyeen gabar hadday kaa tagto oo saas ku jeclayd isweydi intaa fadhiisato maxaa khalada keena khaladka muxuu maxaa sameeyey hadhow hashallaynin markaa ku aragto nin kale oo wixii dhan adi a siini jirin siinayo intaa hadhow sida wiilkana u calaacali lahayd intaa hadhow sida wiilkana u weyn lahayd adhiileed hadda iisoo noqo iska ilaali waxaas gabadha waa la fahmaa hadday jirto gabadha hadda la socoto adi khalad ka gashay please hadday ku cafisay waxa aad samayn jirtay iska dhaaf sababta haddaad wado aadhaad way cafin doontaa waxaa ka hesho waxba iga siini